waxaa tahay wiil hooyo dhashay 9 bilood iyo sugiisa ayaa caloosha hooyada kugu soo waday hooyada waxay kula jeceshahay horumar iyo mustaqbal maanta sidaa ina ahaato hooyada maxay dareemaysaa adigu gabara ku xumaysay oo sidaan aan noqotay hooyada sidee noqonaysaa qalbigeedan sidoo ahaanaya waayo 9 bilood ayay ku soo waday way ku soo korisay in loo tago oo la dhaho wiilkaaga khamri iyo balwad ayuu isticmaalaa noloshu ka dhacay maxay dareemi kartaa waxa iga soo qubatay ilin waxaan ku dhahay wax weyn ayay dareemi kartaa aniga walaalkaygiyo mar walba sababtaan khamriga kugu soo bixinayo oo walaal markuu ku dhaho khamriga iska day aan ku dhaho dhaaf jooskiisa way ha cabo ma ahan inaan kula jeclahay ee waxaan rabaa inaan fahanto qofka dadka kugu dhow inaan noqdo oo aan ka celiyo ayaan rabaa aniga runtii way dhibaysaa sidaa ina ahaato hooyada ka fikir walaalaha ka fikir aabaha ka fikir way kugu soo tacabeeleen maanta wiilkeena qurbaha jooga ayaa alkulista noqday waa laga wanaagsan yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان daawadayaasha qiimaha badan ee ku xiran channelka Higsi Number 1 meel walba aad joogtaan waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan waa idinka mahad celinayaa sida quruxda badan ee muuqaaladii ugu dambeeyay u like gareyseen fikradihiina iyo talooyinkiina aad u dhiibateen waxa ku soconnaa safarkeena ku gaari lahayn nus milyan qof walba oo kamid ah Higsi Number 1 ayaa midaana ka qayb qaadan doono hadduu yahay muuqaalka kugu horeeyay fadlan channelka subscribe saaro si aad muuqaalada dambe ula socoto walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan Allah ka sukow maanta heerkan oo Higsi soo gaaray qaybta ka aha waa idinka mahad celinayaa marna ha ilowinina muuqaalka ina la gareysaan fikradihiina iyo talooyinkiina qaybta qoraalada aad nagu la wadaagtaan qisadan waxa ila soo wadaagay wiil ku nool dalka Jarmalka wuxuu dhahay waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa waligay kuma aan fikirin in anigu qurbaha imaado asxaab iskuulka ila dhiganaysay ayaa waxay ii sheegeen inay tahriibayaan waxaan go'aansaday anigana inaan ka soo raaco anigoo qurbaha aan jeclayn buufisnay haynin markaan soo baxnay oo aan Itoobiya imaanay ayaa ugu dambeyn reerka ogaadeen adeel markaa Addis Ababa joogay ayaa gacanta igu dhigay dibna waxa liigu soo celiyay magaalada Hargeysa halka uu waxbarashadeedii dib aan ugu bilaabay anigu wax walwalay wax dhibaato ah ma qaban waayo awalba asxaabta ayaan iska raacay laakiin dhowr bilood kadib asxaabtii aan safarka Hargeysa ka bilawnay laakiin aniga dib lii soo celiyay ayaa dhamaantooda waxay galeen dalka Jarmalka markaas oo markii ugu horeysay oo buufis ay qabtay ay noqotay waxaan ka haray waxbarashadii waxaan ka go'ay raashinkii anigoo dhan waxaan noqday qof aan dadka la hadlaynin reerkayga aad ayay ila yaabeen ugu dambeyn hooyo markay ila yaabtay ayay waxay wacday adeer waxay ku tiri wiilkii waan kari weynay maalintii asxaabtiisii ee laga soo celiyay ee Jarmalka galeen ilaa maanta markaas oo adeer wuxuu yiri dhib ma lahan gabadha walaashiisa ayaan u soo dirayaa iyadana u dacwoon doonto sidii ayaa aniga dalka Uganda ku tagay oo leen gabadhii walaashay igu xareysay walaashay markaas waxay joogtay Denmark laakiin leenkii mid dheeraada ayuu noqday oo sanad ayaa halka joogay waxaan qaatay go'aan aan cidna ila ogeyn wadadii asxaabteeda ay mareen ayaan go'aansaday aniguna inaan maro sidii ayaan ku baxay oo aan tahriib Masar ku tagay halka ayaan ka tahriibay runtii tahriibka wax sahlan ma ahan dhibaato dheer iyo rafaad ugu dambeyntii hamigeyga iyo rajadeedii asxaabteedii inaan ka daba tagay ahayd ayaa ii suurowday dalka Jarmalka ayaan tagay nolosha ayaan halka ka bilaabay runtii hooyaday waxay igu tiri ma wanaagsana wax walba adigu kaliya ahamiso ina suubiso ha ahaatee maanta hadaa qurbaha ku nooshahay wiilkaygiyo waxaan kaaga dardaarmayaa inaadan diintaada ka bixin dhaqankaaga aadan iloobin wax balwadna aadan yeelanin waayaha ayaan ku iri hooyaday halka ayay nolosheedii Jarmalka ka bilaabatay Jarmalka runtii dadna way u fududaataa dadna sharciga way ku adkaataa anigu 3 sano aan Jarmalka joogay runtii way ugu adkaatay sharciga inaan helo marmarkii qaar waxa arkaysaa dad gadaashaada yimaadeen oo sharciga helaayo qof walba waa nasiibkiisa
ugu dambeyn 5 sano kadib ayaa waxaan helay sharciga Jarmalka halkaa ayaa awal shaqooyinka gaaban ka shaqeynayay laakiin markaani shaqo dawladda ay og tahay ayaan ka shaqeynayay waxaan go'aansaday inaan ka mid noqdo ganacsada ugu waaweyn ay Hargeyso dadaal badan ayaan u galay si aan hamigeyga ku rumeeyo wuxuu waqtiga socdo maalin maalmaha kamid ah meel aan raashin ka soo gadanayo inta badan waxa jirto in isbuucii la soo adeegto kadibna guriga la dhigto anigoo adeeganayo ayaan gabar is aragnay halka ayaanii gabadha isku barannay waxaana kala qorannay telefoonada anigu marka way jireen gabdho badan oo aan hore u shukaansaday laakiin xiriirkayga ma ahaan jirin mid waqti dheer qaato ciladana aniga lahaa waayo markaan gabadha bil ama 2 bilood la socdo aniga go'aan gaarayay inaan ka hara gabadhaani cusub ayaa haddana xiriir la suubiyay runtii labadeena waxaan noqonnay 2 qof oo inta badan waqtiga wada sheekaysta gabdhihii hore waxaan dareemay gabadhan inay ka dhowdahay qalbigeyguna wax badan ay ku yeelatay halkaas waxaan dareemay markii ugu horeysay inaan suubiyay xiriir dhab ah jacayl dhab ahna qalbigeyga uu dareemay waan u sheegay waxba kama qarinin waxaan ku yiri gabdho badan xiriir waan la yeeshay laakiin 2 bilood ka badan gabar weligeey lama soconin waayo qalbigeyga gabar hore wax uma yeelanin laakiin hadda waxaan dareemayaa in adiga qalbigeyga wax badan ku yeelatay halkaas ayuu gabadhii aniga xiriirkeenu ka socday waxaan noqonnay 2 qofood oo runtii aad isugu dhow anigu gabadhii aad baan u jeclaaday daacadna waan u noqday waxaa jiray wiil walaalkeed ah oo Liibiya ku xanimnaa waxay igu tiri walaalkay ayaan rabaa inaad ila caawiso si aan qurbaha ku keeno oo halkaa ugu soo tago xeeladii awoodii dhaqaalaba waan isugu daray si aan u garab istaago ugu dambeyn walaalkeeda qurbaha ayuu u soo galay aniga gabadhaasi muddo 5 sano ayaan wada soconnay maalin ayaan waxaan ku iri aniga iyo adiga xiriirkeena wuxuu gaaray 5 sano waxaan rabaa inaan ka wada hadalno mustaqbal iyo nolol si aan nolosha u wadaagno waxay igu tiri waa arin wanaagsan markaasaan ku iri ka waran haddii aan labadeena aqal galno isguursanno heerkina aan waco markaas ay igu tiri waa arin wanaagsan walaalkay ayaan noo balaminayaa isaga ayaa maaragta nala fadhiisanayo wax walbana walaalkay ayaa u sheegaysaa waayo hadda isaga halkaan ii joogo waayaha ayaan ku iri kadib waxay igu tiri isbuuca dambe ayaan noo balaminayaa sida ogow waxaan meesha ku kaftannaba waxaan sugaba waa isbuuci markii la gaaray isbuuca ayaan waxaan ku iri haye walaal ma balamisay goormaana isku imaanaynaa halkeena isugu imaannaa markaasay tiri oo maxaa naga soo doonaysaa markaasaan ku iri soo aboow lama kulmayno soo inaan adigu ku soo doonanayo oo xaaskayga inaan noqotid aan rabo soo lama wadaagayo walaalka waxay tiri walaalkaygiiyow waxaan u maleynayaa lambar qaldan inaan soo garaacday markaasaan ku dhahay kaftanka inaa iga dayso xaqiiqada igala hadal markaasay dhahday qof la jecel yahay ayaa mustaqbal iyo nolol la wadaagaa adigu aniga kuma jecli maxay tahay mustaqbalka iyo nolosha aan kula wadaagayo waxaan ku iri waxa amaanti ku hadlaysid maxay yihiin xaqiiqo dhab ah ayaan anigu kaala hadlayaa adigu ima jeclid miya maya anigu kuma jecli waligayna kuma jeclaanin kaliya waqtigaan iska luminayay anigu qof kale aan jeclahay waxay ii ahayd arin anigu aad aan ugu naxay waayo marna kama filaynin erayada ay dhahayso iyadoo erayada ay dhahayso haddana xaqiiqdii inay ila kaftamaysa ayaan aaminsanaa nafteeda way ka dhaadhici weysay waxay ii sheegayso inay wax dhab ah ay yihiin laakiin wax walba dhab ayay ka ahaayeen iyada waxaa dhacday in aniga aan telefoonkeeda dhowr mar ku celceliyay laakiin iyada telefoonkii inay iga qabanin ayay bilowday waxay igu noqotay arin lama filaan ah waxaan go'aansaday inaan baxo oo xaafadeeda aado maalinta Axadda waayo Sabtiga iyo Axadda inta badan guriga ayay joogtay oo way ku nasanayso ma shaqeyn jirin waan baxay oo xaafadeeda ayaan tagay iyadoo gudaha ku jirto waxaan u garaacay albaabka waayo telefoonka igama qabanaynin waxay igu tiri haddii aad ka tagi weysay halkan booliska ayaan kugu wacayaa waxaan ku dhahay wac booliska haddii adiga dartaa la ii xiraayo waxba uma arko taa laakiin naftayda way siin weysay inay booliska ii wacdo ugu dambeyn albaabka ayay furtay soo gal ayay igu dhahday waan soo galay
fadhiga ayaan fadhiisannay. Waxaan ku iri aniga iyo adiga muddo 5 sano ayaan wada soconnaa. Waxaan ahayn dad aad isku fahmay. Waxaana ku balannay in walaalka ii balamiso si aan u aqalgalno. Maxay tahay waxa aad ka hadlaysid? Markaasay tiri, anigu haddaan runta kuu sheego, hal maalin kuma aana jeclaanin. Gabadhuna 1 wiil ayay shirisaa, midna way ka doorataa. Anigu waxaa la joogaa waqtigii aan hal mid ka dooran lahaa. Kan anigu aan doortane, adigu ma noqonin. Kumana soo bixaysid dooqayga, iga raali noqo. Waxaan ku iri, adigu waxaaga kaftan miya? Maya igu dhahday. Haddii aad anigu hadalkayga kaftan u malaynaysid, isug. Telefoonkeedii ayay lambar ka wacday. Sameecadana way ii furtay. Nin codkiisa, hebel sidee tahay, waan fiicanahay. Waxay tiri waxaa jira wiil anigu waan ku jeclahay, mustaqbalan kaa raba ay dhahayo. Bal waxaad u sheegtaa aniga iyo adiga in 2 qofood mustaqbal iyo guur ku heshiiyey inaan nahay, dhawaanna aan aqalgali doonno. Markaasuu dhahay igu dhiib. Wuxuu igu dhahay walaal, ma jecli qalbigaaga dhaawac inaa u geysto, adiguna qalbigayga dhaawac ha u geysanin. Gabadhaan anigay dhowaan xaaskayga noqonaysaa, aniga i dooratay. Gabar walbana rag badan way shukaansataa, laakiin hal mid ka mid ah ayay la baxdaa. Aniga ayaa noqday dooqeeda. Raali noqo. Wiil walaalkayga ayaa tahay. Ee gabadhaan dumaashida waaye. Xishow. Anigu wax hadal ah iga soo bixi waaye. Telefoonkiina iida ayaan u dhiibay. Markay damisay waxay igu tiri, soo lagama qurux badna inaa halahan kadib halkaan sii fadhiso. Waan ku ixtiraamay oo albaabka ayaan kaa furay. Wax boolisaana kuma wicin. Orod oo bax. Waxaan ku iri, waxa aad soo bisay wax wanaagsan ma ahayn. Anigu inaan doorasho ku jirane iima aadan sheegin. 5 sano ma noqon karta doorasho, ee waxay noqon kartaa qiyaano. Anigu waan ku aaminay, daacadna waan ku noqday. Habeenkuma aana seexanin inaa adiga ii xumayn doonto. Dhib ma lahan. Waan baxay oo gaarigayga ayaan qaatay. Laakiin waxaan xakameyn waayay naftayda. Guriga haddii aan tagay, ilin kaliya ayaa iga qubanayso. Waxaan bilaabay inaan isla hadlo oo aan isweydiiyo maxay adigu kuu dooqan weysay. Qof markaa jeceshahayne wax walba uu kuu geysto, go'aan ma qaadan karsid. Waan awoodi waayay go'aan inaan qaato, waana ka sabri waayay. Waxaa jiray wiil aan saaxiib nahay oo labadeena aad niskee yaqaanay. Waan wacayo ii imow ayaan ku dhahay, xaaladayda ma fiicno. Waayaha ayuu igu dhahay, waa uu ii yimid wiilka. Wuxuu igu dhahay maxaa dhacay? Waxaan ku iri xaq miya inay aniga sidaan ii gasho, wiil kale ay iga doorato. Markaasuu yiri meela kaftamaysaa, ma dhici karto in adigu nin ay kaa doorato. Aad bay kuu jeceshahay amay kula kaftamaysaa gabadha. Waan u haystay kaftan, laakiin xaqiiqda haddaan kuu sheego, sheekadu kaftan way dhaaftay. Gabadhuna nin kale ayay la socotaa ee guur ku heshiiyeen. Markiiba wuxuu wacay telefoonkeedii. Wuxuu ku yiri sidee tahay? Markaasay tiri hebel ayaa ku soo wacay soo maaha. Markaasuu yiri ima soo wicine, hebel oo xaalad kale ku jiro ayaan isla joognaa. Maxay tahay kaftanka aad xilligan keentay? Markaasay ku tiri wax kaftan la yiraahdo ma jiro. Xaqiiqada dhabta ah ayaan wiilka walaalkay u sheegay. Gabadhana 1 nin ayay shukaansataa, midna way ka doorataa. Wuu noqon waayo dooqayga. Waxa uu noqday walaalkay. Maantana ma awoodo. Qalbigayga meel kale ayuu aaday. Ha iga raali noqdo, ee caadi ha iska dhigo, noloshiisa ha wato. Wuu isku dayay inuu la hadlo, laakiin eeda ma rabin in intaa ka badan lala sii hadlo. Warkeediina wuu caddaa. Waayo eeda shalayba ima jecleen oo go'aan way iga qaadan kartay. Laakiin qofka aana go'aan ka qaadan karin aniga ahaa. Wiilkii saaxiibkay wuxuu bilaabay inuu isabarsiyo. Uu wax walba ii sheego. Anigu waxaan bilaabay marka ugu horeysay in anigu waqtigeygii xataa aan xisaabi waayay. Shaqo aan aadi waayay. Ugu dambeey waxa bilaabatay shaqadii in laga soo ruqseeyo. Waayo shaqadii inaan googooyo ayaan bilaabay. Markii aan tagane, cabaar haddaan joogo ma fadhin karo oo waan ka soo tagayay. Waxa igu xigay in anigu naftayda xakameyn waayay oo habeen iyo maalinba qof soo jeeda aan noqday. Aad buu igula dadaalay wiilka saaxiibkay. Talooyin badanna wuu siiyay. Markii dambe wuxuu igu yiri, adiga aniga xaaladaada uma bogin. Bareerkaaga lambarkooda horta marka hore isii. Waan u qoray.
xaaladeyda marba markay ka dambayso way ka sii daraysay. Ugu dambeyn, markay igu horeysay noloshayda, waxaan bilaabay inaan qamri soo gato. Qamri cabidiisii ayaan bilaabay. Mar walba wuu ila talinayay wiilka saaxiibkay, laakiin maalinba maalinta ka dambayso qalbigayga wuu sii ololayay. balwad ayay ii dhiibaysay. Waxaan noqday qof nolosha ka dhaca, gabi ahaanba hamigii iyo rajadii uu lahaa ka burburtay. Heer waxaan gaaray askarta ay dhahaan gabigaagaba gaari ma wada katid. Anigu dhan waxaan noqday qof nolosha ka dhacay oo aad u isticmaalaya balwadda. Habeen iyo maalinne ay isku mid u tahay. Mustaqbal ma lihi, salaad ma jirto. Qamriga ayaan wehel ka dhigtay. Hataa qamriga waxaan ku cabayaa musqusha. Inaan muraayada hor tago ayaan anigu iscanaananayaa. Miyuu kaa qurux badan yahay? Miyuu kaa lacag badan yahay? Miyuu kaa karti badan yahay? Sabab ay nin kale kaaga dooratay? Maxay 5 sano adigu qalbigaaga ugu dheelaysay? Wiilka saaxiibkay ay aadka ii garab istaagay. Wuxuu go'aan ku gaaray in gabar ay qaraabo yihiin oo arintayda u sheego. Oo dhaho wiil aan saaxiib nahay, aad u qiimo badnaa, balwadda nabcanaa, iska daaya isaga inuu isticmaalo. Xataa qofka uu barta hadduu balwad leeyahay wuu ka dheeraan jiray. Laakiin hadda jacayl dartiisa ayuu balwadda u isticmaalaa. Anigu xaaladiisa way iga awood badnaatay. Waa qof qalbiga laga dhaawacay. Isku day inaa qalbigiisa daawo u noqoto. Laga yaabaa qofku balwaddan kaga bixi lahaa inaa adigu noqoto. Markaasay waxay ku tiri gabadha, adigu ma waalan tahay? Nin balwad leh sidee anigu hor fadhiisan karaa? Markaasuu yidhi adiga ha hor fadhiisanin. Anigu markaan u tagaayo ayaa iraacaysaa. U muuji naxariis. Laga yaabaa qalbigiisa waxaan ku jiraa inay ka baxaan. Waayaha ayay ku tiri gabadhi. Kadib waxaa ii yimid wiilka saaxiibkay oo gabar la socoto. Wuxuu igu dhahay gabadhaani qaraabo ayaan nahay. Waxaan u soo waday guriga inay ka hagaajiso. Gabadhi waxay bilowday inay aad igu naxariisato. Inta badanne qofka markii uu balwad leeyahay, qofka balwaddan iska daydhaho aad uu u necab yahay. Gabadha waxay suubisay markii anigu dhalada iga dhamaataba firinjeerkay tagtaa, mid kale ii soo bixisaa, waa ii furtaa, way ii siisaa. Isagii waxaan ka jeclaaday gabadha, waayo isaga maanta oo dhan wuxuu leeyahay balwaddan iska daa, nolosha ayaa ka dhacday. Gabadhi shalay aa jecleed hadday nolol iyo mustaqbal suubsanayso, adigu maxaa mustaqbalkaaga iyo noloshaada ugu dheelaysaa? Laakiin iyada waxay ii siinaysaa qamriga, wax alla waxaa raba way ii soo qabanaysaa. Markii dambe waxaan bilaabay isaga yow ii imaanine, adiga ii ima uu inaan dhaho. Gabadhi ayaa mar walba ii imaan jirtay, way ii sheekeen jirtay. Waxaan ugu sheekeynayaa dhibaatadii aniga aan soo maray. Waxa ay leedahay jacaylka sidiisaba qof dhibaato waa lagu geysan karaa, qofna farxad waa lagu siin karaa. Haddii adigu maantay jacayl dhibaato lagugu geystay, daawadiisa soo jacayl kale kama helaysid. Hadday gabadha ku xumaysay, maxaa mustaqbalkaaga iyo noloshaada adigu ugu dheelaysaa? Gabadha iyada kuma dhihin khamri cab, nolosha ka dhac kuma dhihin. Iyada mustaqbalkeeda iyo nolosheeda ayay wiil kale u dooratay. Adigu maxaa gabar kale ugu dooran weysay? Markaasaan ku yiri aniga sidee gabar kale ula hadli karaa? Sidee anigu qalbigayga gabar kale u siin karaa? Sidee aniga waxa ay soo gaareen u iloobi karaa? Markaasay igu tiri, hadda anigu ila hadlaysid soo gabar miihi, anigu soo walaasha miihi, anigu soo hadda waxa arabtid soo kuuma suubiyo. Haa ayaan ku yiri, soo lagama yaabo in anigu qalbigaaga aan daaweeyo oon daawo kuu noqdo. Markaasaan ku dhahay, adiga miyaad qalbigayga ii daaweynayo oo daawo ii noqon karo? Markaasay igu tiri, haddii adigu arabtid anigu daawo waan kuu noqonayaa. Waxaa tahay wiil walaalkayga ah oo xaaladdan ku jiro. Saaxiibka ayaa iga sheekeeyey qiimaha iyo walaaltinimada iyo saaxiibtinimada iyo horumarka sidaa u jeclayd. Wiil mustaqbal iyo rajo lahaa ee maanta gabar dartiisa dhibaatada iyo rafaadkan u maraayo. Anigoo gabar ah in wiil walaalkay ah oo Soomaaliyeed farxadiisa iyo jacaylkiisa aan noqdo maxaa diidayo? Haddiiba adigu aad diyaar u tahay. Markaasaan ku iri, runtii gabar wanaagsan aad tahay. Anigu gabaraan shalay ilaawacday, dhibaatada maanta ee ku jirane darteeda. Adiguna maantay waxaad diyaar u tahay dhibaatada aan ku jiro inaan ka baxo sabab u noqoto. Adduunka arkaysid qofna wuu ku xumeynayaa, qofna wuu ku wanaajinayaa. Haddii adigu maanta qalbigayga aan ku siiyo
oo dhibaatooyinkii iyo dhaawacii aan ka soo gudbo soo lagama yaabo beritool inaad adigu dib igu celiso. Markaasay igu tiri maya, waayo qof la dhaawacay oo la xumeeyey haddaaba diyaar u noqotay inaad daaweyso, sidee u dhaawacaysaa? Qalbigayga aad u baqaaya. Sida aan ahay ayaan ku wanaagsanahay, adigu laakiin gabar aad u wanaagsan ayaa tahay ayaan ku yiri. Maalintaas intaas ayaanii gabadhina dhex martay, mar walba way ii imaanaysay. Ugu dambeyn maalin anigoo hurdo ka soo kacay ayay ii timaaday. Waxay dhahday maanta qamriga ha cabin, ilaa cabaar waxaan rabaa labadeena inaan sheekaysanno. Guriga hortiisa baakinka ayaan imaanay. Waxay igu dhahday waxaa tahay wiil hooyo dhashay, 9 bilood iyo sugiisa ayay caloosha hooyada kugu soo waday. Hooyada waxay kula jeceshahay horumar iyo mustaqbal. Maanta sidaa ina ahaato, hooyada maxay dareemaysaa? Adigu gabara ku xumaysay oo sidaan aan noqotay. Hooyada sidee noqonaysaa? Qalbigeedan siduu ahaanaya? Waayo 9 bilood ayay ku soo waday, way ku soo korisay. In loo tago oo la dhaho wiilkaaga qamri iyo balwad ayuu isticmaalaa, noloshu ka dhacay, maxay dareemi kartaa? Waxa iga soo qubatay ilin. Waxaan ku dhahay wax weyn ayay dareemi kartaa. Aniga walaalkaygiyo mar walba sababtaan qamriga kugu soo bixinayo, oo walaal markuu ku dhaho qamriga iska day aan ku dhaho dhaaf jooskiisa way ha cabo, ma ahan inaan kula jeclahay, ee waxaan rabaa inaan fahanto qofka dadka kugu dhow inaan noqdo oo aan kaa celiyo ayaan rabaa. Aniga runtii way dhibaysaa sidaa ina ahaato. Hooyada ka fikir, walaalaha ka fikir, aabaha ka fikir. Way kugu soo tacabeeleen. Maanta wiilkeena qurbaha jooga ayaa alkoolista noqday, waa laga wanaagsan yahay. Maalinta erayada gabadha aad baan ula qashuucay. Waxaan ku eray isug. Waxaan bilaabay dhammaan inaan ka soo bixiyo qamriga firijeerka, banaanka gurigana aan keeno. Waan qaweystay. Adigu 2 maalin wax qamriga ma cabin, laakiin maalintii 3aad halkeedii ayaan ka bilaabay. Firijeerkayga waan soo buuxsaday. Way timaaday, markay aragtay way ii soo bixisay, way siisay. Markaasaan ku dhahay maxaad u cabtay? Ima dhehaysid. Mayay tiri adigaa leh go'aanka. Anigu waan kuu soo bixinayaa hadduu kaa dhammaado, waayo adigu waxaa tahay wiil aan hooyadii ka fikiraynin ee gabadhii dhibaataysa keliya ka fikiraayo. Adigu habeenaha ka mid ah oo aad aan qamriga u cabay ayaa gabadhii erayadeedii dib igu soo noqdeen. Waan wacay, telefoonkeedii aan wacay way iga qabatay, aad anigoo u oynayo. Markaasay dhahday maxaa kugu dhacay? Erayadii ay dhahaysay muddooyinkii ugu dambeeyey aad ayay ii taabteen. Waxaan kaa codsanayaa hal mid. Waxaan rabaa inaan gebi ahaanba qamriga iska daayo. Waxaan rabaa farxadeedii iyo noloshayda inaan soo cishto. Hal mid ayaan kaa baryayaa. Waxaan rabaa adigu farxad in ay siisid. Waxaan rabaa in adigu jacaylkaygii noloshayda aad noqotid. Markaasay dhahday beriyaan kuu imaanayaa, telefoonka iska dami, qamri dambe ha cabin, iska seexo. Waayaha ayaan eri. Habeenkii waan seexday. Subaxii waaga markuu baryay ayay ii timaaday. Waxay igu dhahday erayadii xalay ay dhahaysay ma qamrigaad cabtay keliya kaa hadalsiinay, mase dhab ayay ka ahaayeen? Waxaan ku iri dhab ayay iga tahay. Waan ogahay shalay waan iska daynaa inaan ku dhahay oo aan dib ugu soo noqday, laakiin waxaan kuu ballan qaadayaa mar dambe inaan balwad isticmaalin. Laakiin adiga ayaan rabaa inaad farxadeyda, jacaylkayga, noloshayda noqotid. Waxay igu dhahday haddii aad qamriga iska dayso muddo 3 bilood ah, shaqadaada aad ku noqoto, ninkii shalay la yaqaanay aad noqoto, waxaan kuu ballan qaadayaa geerida inaa igu weysamehe inaana kaa fogaanaynin. Waayaha ayaan iri. Maalintaa ayaan ballan ka qaaday. Waxaan bilaabay inaan noloshaydii dib u soo celiyo. Wax walba aan si degdeg ah ku burburiyey ayaan go'aansaday inaan dib u soo ceshto. Waxaan bilaabay inaan qamriga gabi ahaanba ka fogaado. Salaadii ayaan dib ugu noqday, waayo intaan qamriga cabayay aad baan ugu fogaa salaada. Salaadii ayaan dib ugu noqday. Jamaacadii shalay garanaysay ayaan masaajidka iskuul tukan jirnay, aad bay ugu farxeen. Waayo dadka qaar waxay aaminsanaayeen inaan anigu waashay. Waxay arkeen balwadeeda iyo nolosha, laakiin dhibaatada iyo meesha iga soo gaartay meenan ogeynika. Ugu dambeyntii 3 bilood ayay noloshayda dib igu soo noqotay. Waxaan noqday qof shaqaysta. Waxaan noqday qof balwadii ka fogaada. Halkaas ayaa mar labaad qalbigayga wuxuu ku galay gabar kale.
xiriirkeena ayaa halkaa ka bilowday. Hooyaday waxay tiri mar walba waan kuu duceynayay, waan ka naxay balwadaada, waxay ahayd waran igu taagan. Alxamdulillaah, haddii aad maanta balwadda ka fogaatay waa waxaad wanaagsan. waxaan ogaaday maalinta in jacaylka lagugu dhibaateyn karo, laguguna wanaajin karo. hadday shalay gabadhii aan bartay ayaan si dhab ah u jeclaaday, 5 sano xiriir jacayl aan la lahaa sabab u noqotay inaan anigu balwad yeesho. waxaa ugu dambeyn balwadii inaan iska dayo sabab u noqotay gabar dhibaatadeeda iyo rafaadkayga aragtay. ugu dambeyn aniga gabadha waxaan ku heshiinay inaan isguursanno. waxaan ugu sheekayn jiray marxaladihii iyo noloshayda bilowga siday ahayd. qurbahan anigu marka hore ma jeclayn, laakiin dhallinyarada asxaabteeda markay soo aadeen ayaa aniguna go'aansaday. mar ayaa Addis Ababa liiga celiyay, duruuf adag iyo dhibaato ayaa ila soo martay. ugu dambeyn aniga gabadhii sidaa ayaan ku aqalgalnay. waxa inoo bilowday noloshayni iyo farxadeeni. alxamdulillaah, maanta waxaan haysanaa 5 ubad. way qurux badan tahay noloshayda. waxaan ka qoomameeyaa gabar aniga i qiyaantay, wiil kale iga raacday, in anigu noloshaydii aan u baabi'iyey oo anigu darteeda aan balwad u yeeshay. aad baan ugu qoomameeyaa. waayo qofka haddii isagoo ku jecel dhib u gaaro waa loo dhibtoodaa, laakiin qof isaga ku xumeeyey, isaga inuu ku dhibaateeyo go'aan ku gaaray inaa adiguna naftaada u dhibaatayso, waa mid aan mar walba ka qoomameeyo. waxaan jeclaaday in dhallinyarada Soomaaliyeed inaan la wadaaga qisadayda, hal dardaaranna aan siiyo. haddii gabar aad jeceshahay lagaa guursado oo qasab reerkeeda nin ugu daraan ama ay kaa dhimato, waa mid aan la murugoon kartid, dhaawac weynna qalbigaaga inuu soo gaara qasab tahay. laakiin qaladka aniga aan galay ay ahayd gabar anigu i qiyaantay, wiil kale iga raacday, in aniga darteeda aan u dhibaatoodo, ee naftayda aan u iqaabo, hooyaday aan murugo geliyo, qamri aan cabo, shaqadii layga soo buriyo, noloshii aan ka dhaco, ee aan noqdo mid aana qiimo iyo sharaf lahayn. gabar anigu i qiyaantay darteeda aad baan ugu qoomameeyaa. qof walba maanta waxaan kula talinayaa, haddii uu qofku wanaajiyo adiguna wanaaji, haddii uu ku ixtiraamo ixtiraam. qofaa si dhab ah u jeceshahay uu kaa geeriyoodo ama haddii niila kala geeyo u murugow, laakiin marnaha u murugoonin qof adigu ku dhaawacay, adigu ku xumeeyey, noloshaada gabi ahaanba inuu baabi'iyo rabay, inaa adiguna ku caawiso in adiga noloshaada baabi'iso. waayo qofka qalbiga kaliya ayuu ka dhaawacay, laakiin adiga fursad u siiyay qofkaas in gabi ahaanba noloshaada ee baaba'do. aad baan ugu qoomameeyaa. waxaana ka bartay nolosha, hadday gabar ku xumayso in gabar kale ay ku wanaajinayso, haddii uu wiil ku xumeeyo inuu wiil kale ku wanaajinayo. waxaan leeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee mustaqbalka iyo nolosha maantay inay dhistaan ku fikirayaan, qof walba waxaa ogaataa jacaylka inta aad ka filaysid in farxad lagugu siiyo, in intaa in la mid ah dhibaato lagugu geysan karo. waxaa laga rabaa qofka aad jeceshahay inuu qof kale dartiisa kuu xumeeyey markaa aragtid, adigu waa inaad noloshaada sii wadataa. dhaawaca ku gaaray waa inaad adigu dabiibtaa, waa inaad raadsataa fursad noloshaada siday ahayd aad kor ugu sii baxdaa. laakiin ma ahan dhaawacii laguu geystay dartiisa sida anigoo kale gabi ahaanba noloshiisa inuu dhulka geeyo. alxamdulillaah, maanta wax walba iyo dhibaato walba aan soo maray, maanta waxaan ahay mid waxaasoo dhan ka soo gudbay. muhiimaddu waxay tahay haddii lagu dhaawaco sidaa ugu gudbi lahayd dhaawacaas, ee nolol kale iyo farxad kale oo tii ka wanaagsan aa u raadsan lahayd. laakiin haddii aad dhahdo waa lay dhaawacay, dhaawacaasaan anigana isku daraya, adigu unbay dhibaato kugu noqonaysaa. jacaylku wuu leeyahay farxad, wuuna leeyahay murugo. mar walba labadaba filo, laakiin isku day inaa adigu dad xumaynin, dad qiyaanin. adigu isku day haddii lagu dhaawaco inaa ka gudubto. waa rajaynayaa dhalinyaro badan qisadayda inay ka faa'iidi doonaan. anigoo kale ah noqonina, ha raacinina naftiina qofkii idin xumeeyey, ee sida aad noloshaada u horumarin lahayd middaas raac. waa idinka rajaynayaa middaas. runtii waa qiso aad u xanuun badan, waxayna tusaysaa qisadan jacaylka sidiisaba inuu 2 af leeyahay. dhankaana uu yahay dhankii farxadda, jacaylka, kalsoonida iyo mustaqbalka aad ku helaysay. dhankaanne haddii la adeegsado
waa dhankii noloshaada burburin lahaa qalbigaaga burburin lahaa laga yaabaa streetkii aad ku socotay inaad ka dhacaysid waa inaad ogaataa marka wax walba oo ku qabsada wax ku qoran inay yihiin laakiin maxaa la rabaa oo maanta wiilka walaalkeena uu nagala dardaarmaya oo uu dhahay shalay inaan anigu suubiyo qalad ay ahayd waana mid aan ka shalaynayo kana qoomameenayo in qof anigu ii xumeeyay i qiyaanay dhaawac ii geystay inaan maaragtay naftayda u baabi'iyo waalidkayga ka murjiyo anigu shaqadii aan lahaa rajadii aan lahaa gabi ahaanba inaan baabi'iyo khamri cabo salaadii ka tago ma ii og tahay waayo shalayba way dhaawacday way ku farxaysaa maanta hadday taa aragto shalay ma ogeyn ayuu dhahay waana ka qoomameeyaa ilaa maantay in qof i dhaawacay dartiisa aan u dhibaatooday dhalinyarada maantay mustaqbalka iyo rajada leh waxaan kala dardaarmayaa in haddii uu qofku dhaawacu ku xumeeyo inaad dartiisa noloshaada u xumaynin qofka qalbiga ayuu ka dhaawacay ha u siinin fursad inuu arko adigoo nolosha ka dhacay midda badalkeeda waxaad ugu bedeshaa inuu arko shalay heerkii aad joogtay mid ka wanaagsan adigoo jooga inuu arko ka farxad badan ka mustaqbal iyo rajo wanaagsan ugu dambeeyna maanta xaas wanaagsan heshay khamrigii ka goysay aaba noqday maantay hooyadii ka farxiyay maanta waa kana qisadiisa nala wadaagayo oo anagana dhahayo ka fogaada qof isku dayay inuu ku dhaawaco inaad ma aragtay naftaada u dhaawacdo waa xaqiiq sax runtii mar walba aan qisooyin idin soo gudbiyo muhiimadu waxay tahay ina cashir ka baranno jacaylku inuu laba dhan yahay laguna xumayn karo laguna wanaaji karo sida farxada u rabtid ayaa qof u rabaya murugtaada inuu arko mar walba waxa ku dadaashaa inaad ahaato qof marxaladda markaa uu taagan yahay sidoo ugu gudbi lahaa ka fikiro waxaan rajaynayaa qisooyinka Higgs number 1 aan ku soo gudbiyo inay noqdaan kuwa aan kuwaana qaadanno cashirna inoo noqoto aad baan ugu faraxsanahay in bulshada Soomaaliyeed qisooyinkooda aan soo gudbiyo runtii muhiimadda ugu weyn ee Higgs number 1 loo asaasay waa in bulshada Soomaaliyeed qisooyinkooda xanuunka badan ee guryaha lagu la jiro inaan banaanka keenno si dhalinyarada maantay ay ugu waana qaataan kuwii la dhaawacay iyo kuwii wax dhaawacayba inay arkaan in nolosha maanta qof dhibaatada u geysato uu ka gudbi karo adiguna haddii lagu dhaawaco inaad dhaawacaasi ka gudubto isku day mar walba waa rajaynayaa qaybta faalooyinka inaad taladaada iyo sida u aragtay qisada aan ugu la wadaagto marna ha iloobin muuqaalka inaad like gareyso si meel dheer u gaaro hadduu yahay muuqaalka kugu horeeyay fadlan subscribe saaro walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan Allah ka sukow Higgs number 1 maanta meesha uu taagan yahay qaybta ka ahaa waa idinka mahad celinayaa halkeeda ka sii wada dadaalka halka ay ga daawanaysaan waa YouTube-ka qisooyinka Higgs number 1 anigu waa Subar Carab mar walba waxa idin leeyahay ha guuleysta jacaylka halkani waa hooyga qisooyinka Higgs number 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka gooxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareeya asxaabtaada ha iloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka oo anigoo ah Subar Carab